السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي أصحابي ميل بودوني كجوكتان إنا عافماد قبطان رجينا يا جنال كان نقل سعطان وقدر كيف قف إذن سو تبنان وولاش إنا قدر كيف كسو دواذا قعمة فرن إيا قلبي سافئة إن شاء الله إنا عافماد قبطان رجينا يا maanta maxaa idin wadaahay maanta afaara yaroo aada easy ah oo aadna u macaan ani ahaantii aan jeclahay idin soo gudbinayaan jeclaysta inaan idinla wadaago waxaan idin wadaa moos wax yar oo moos aan ka sameynaa moos iyo ukun iyo alaabo yar isku daraya iyo buriiriis ah waxay noogu soo baxo arki doontaan insha Allah isla socod wanaagsan saddex xabo moos ah inta ku heystaa fargeetada aan ku soo garaacaya aan ku soo jibinaya mal dhijir ku soo bajiiqinaya qof soo yaqaan aan kusoo bajiiqinayaa suu noogu soo baxana waan arkaynaa iyo wixii kale aan ku darsanaynaa fadlan haddii aan nagu cusub tahay soo dhawow gacmo furan soo dhawow janaalka waa janaalkaaga subscribe noo dheh like-na ha nala garab marin waaba nala joogtahay saddex xabo ukun aan kusoo darsanayaa ii sheeg saddexda xabo mooska aheyd saddexda xabo ukunteeda iyo saddexda xabo mooskeed haddana waa isdhexgelinayaa saasaan kusoo wadayaa si ay aada isu dhexgalaan ay isugu milmaan markay isku milmaan kadib saddex qaado sokor ku soo daraya waana ila arki doontaan insha Allah isla socod wanaagsan asxaabi dadka cusub soo dhawaada dadka nala joogina like iyo comment iyo share intaba waa dhankiina dhiirigelinta dhankiina waaye soo dhawaada asxaabi janaalkiina waaye wakaa marka haddana aada isu soo dhexgalay ukunti iyo mooski haddana waxaan kusoo darsanaynaa sokorta yareed sokorta saddex qaado waaye sokorteena sokor waaweyn waaye ma ahan daqiiqda saddex qaada kusoo daraya saddexda qaad kadibna aada ugu soo garaacaya si uu u dhalaalo sokorta haddaysan dhalaalin dhibkeeda leedahay oo way iga haleynaysaa inay milanto oo sokorta dhalaashaa rabaa insha Allah saasaan walaaqa maanto dhan ilaa iyo maanto dhan waxaan ka wadaa ilaa iyo cabaar in muddo intuu ka dhalaalo intuu ka dhalaalo saasaan kusoo wadayaa mar walba fiirinaa inuu dhalaalay in kale kadibna wixii noo dhimana kusoo darsanaynaa insha Allah isla socod wanaagsan asxaabe mar kale waxaa idin xasuusinayaa like-ta ila garab marin waaba joogtaaye iska taataaba like-ta faraha kuma xanuunaan marka waxaan ku darsanayaa vanilya yar ama carfisada caaga qofkii haysto oo nooca budada ah maasha Allah wixii lagu daro caraftiisa ma maleysan kartid ana carfisada caaga haystaa hadda waan idin tusi waa caagi anoo qaandada kusoo darsada la arkay qaandada inta afkeeda ah kusoo shubay caraf uu noqonayaa buraa soo qaatay bakeeriga afkiisa hore waa wax yar waa saddex qaado oo kale bakeeriga intaan ka daraa waa u jeedeen afkiisa hore idinkugu daraa bur badan mal rabo geedkan awoodiisa waxaa mooska iyo ukunta waaye burka wax yariis tusaale ah waa saddex qaado oo kale qaado yariista wax ku cabiraay le waaye aan kusoo walaaqayaa kadibna caanihi aan ku darsanayaa wixii noo dhiman insha Allah isla socod wanaagsan waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan 100% hadduu Ilaahay idmo aana ila tijaabin doontaan insha Allah qofkii soo tijaabiyo unbaa garan macaankeeda iyo dhadhankeeda bahashaan waxaa canjeero ma tabaysid hadaa bahashaan barato ilmaha iyo adi waxaa ka maarmi doontaan canjeero burka waa kaa inta kale waa idin tusi inta uu joogo caanaha bakeeri dhigtiisa qaybta hoose noogu egyahay haaf xitaa ma aanu ka yaryahay caanaha sirka kusoo daray waa caana booro ani hadda waxaan soo qasay caanihii ku yaalaan ku darsan kartaa waa kusoo garaacay le marka kusoo garaacdo isdhexgalo sidii reebi noqdo adaa fahmi doonaba insha Allah isla socod wanaagsan asxaabe mar kale subscribe-ta nala garab marin like-ta naga soo dhis iyo comment-iga waana maasanta la joogitaankaaga inta haddaa nala joogtay qofna jecelaa tahay oo dhiirigeliyo oo garab taagan hadaad soo dhamaysatay insha Allah bahashaanaytan soo tijaabiya ilmihiina waxaa waa nafaqan way u tahay wayna anfici doontaa nimanka naagaha waa wax aada u fudud oo easy ah birti haddana dabka saaraneynaa waxaa fiican geedanito hada isticmaalayso samaysanaysa birta nan isteega inaa haysatid birta yacni aan waxba ku dhigdhigeenin oo saliid waxbaan u baahneen ani marka hore saliid yaraa soo mariyay birta ukun iyo waxyaabo kale aan ku dubaa waa dhaqay oo ma ku dhaqay qaleelkaas aan ka cabsaday oo zaaidka wax yar saliida marina bahasha markoo saliid la mariyo xoogaane way ka qadqaadmaysaa
laakiin kadib saxdii kusoo noqon halka mar ugu horeysa bas saliid marinaa kadib saliid marinaay qaandaas gudana kusoo daraaya oo sida furjalaati oo kale ugu wareejinaya sida furjalaati oo kalena ma laga dhigaayo laakiin wax yar tusaale ahaan insha Allah kor markay ka qalasho ma daboolay kor ka liirsanay markay ka qalasho ka u jeedaa buraashka oo yariiska ah saliid ku marmarinaya kii akoodi wati kadibna waa gidinaa insha Allah markaan gidin saasay noogu soo baxday xabadii koowaad waa midii ugu horeysay kuwa kalena ka sii qurux badnaan doona midaani maadaama saliid la mariyay dhabarkeeda iyo saanan noqday saliida wali leh isla socod wanaagsan asxaabay xabadii labaad haddana ku soo shubeynaa si noogu soo baxdan waa arki doontaan waka haddana xabadii labaad sa u jeedaan isla qaadada la isticmaaleyna iyo birti ma dabooleena wax yar joogina kadib waa la gidinayaa kadib saliidii la marinaa kadib waa la gidinayaa kadibna sidii saxdii noogu soo baxaysaa mar kale iyo mar saddexaad iyo mar labaad iyo intaba soo dhawaada asxaabey waka xabad labaad dhabarkeeda saasoo noqday saliida xoogaa dhamaadka ah kuwa kalena ka sii qurux badnaan doonaan dhabarkoodi maxaa yeelay birta hadday saliid la'aan tahay qurux waa birtaaneed kuma dhigayso wixii aad ku dubtidna waxay ka dhigay maasha Allah isla socod wanaagsan asxaabay ila soo tijaabiye soonko kale hadda aad u anficay dadka gaas malahan waxba malahan wax qamiira kuma jiro bakin kuma jiro waa moos iyo ukun iyo sokor yar iyo caano yar iyo bur oo 3 qaado ah ma ahan wax lagu cayilaayo in dadka miisaan dhimista sameeyna xitaa aad u anficaysaa 3 qaado burka ah ku dar bedelkeeda waxa lagu darsanayaa bur qamadiga ama boorashka oo gasac inta wax yar la shiido camal lagu daraaya caanaha oo booraha bedelkiisa caano geel ama caanaha oo low fatka lagu daraaya kadib miisaan dhimista loo isticmaalaa marka bismillaah ma sha Allah ay noqonaysaa qofka uu cuno quraacdiisu ay toosay waka asxaabi saan noogu soo dhamaaday mooska sirka lagu cunaaya iyo shukulaatada aan guriga ku sameeysto guriga ku shiitay ku isticmaaleena ilmaha cunaaya oo sameeysta ani qeyr caafimaad insha Allah aadan u mahadsantiin daawashadiina. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.